بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أتنكي بشكو بتمناد نوفمبر لو كن إسديد tobanka maalin Arbaca ah waxaan joognaa jaamacadda Gedo ee degmada Balad Xaawo meeshii ka socday dhismihii jaamacadda Gedo oo hadda socda dhexdana maraya insha Allah tacaala dhamaystirmi doona waxaan ugu soo booqday goobta dhismaha jaamacaddu ay ka socoto rag ka mid ah culimada iyo maaragtay waxgaradka hawshan abaabulkeeda wax ka ahaa Cabdishakuur Cabdi Nuure Xoobey iyo walaalka Cabdirashiid Cali Gaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka abaalmariyo booqashadoodan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa waxaad ogtihiin jaamacaddu hadda way furan tahay oo guryo kiraahay ku jirtaa laba kuliyadood baa furan kuliyadda shareecada iyo kuliyadda kalkaalinta caafimaadka magaalada gudaheeda ku jira hadda imtixaanadii baa socda marka iyadoo saa u shaqeysa haddana halkan waxaa ka socda dhismaheedii iyo abaabulkii hawshaas meelo badan ka socday waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyaadkii iyo dadkii muslimiinta ahaa meel walba joogaan oo ka qayb qaatay hadda heerkan ay maraysa soo gaarsiiyey oo ay ka mid yihiin dadka degmada Balad Xaawo oo markii horena dhulka gaday kadibna maaragtay dhismihiisii ka qayb qaatay degmada Doolow qaybta ugu weyn oo dhismaha waxa lagu bilaabayna jaaliyadda Australia ayaan uga mahadcelinaynaa oo iyaguna aad uga qayb qaatay hadda abaabul badan baa ka socda oo Nairobi hawshan maaragtay sidii loo dhameystiri lahaa ayagana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barina inuu u dhameystiro waxaan filaynaa inay hawsha inta ugu weyn ay ayagu maanta waxaan joognaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo gaarsiiyey goobtii iyo meeshii ay ka socotay dhismihii jaamacaddii Gedo oo degmada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo alxamdulillah Ilaahay baa mahad iskale saad u aragtaan ama hadda idin muuqda dhismaha halka gadaale adka oo jaamacaddu la tusi doono meel fiican ayay maraysaa jaamacaddu intay ka kooban tahayna naqshadeedu waa halkan ku sawiran hadda sida muuqata qaybtan baa dhammaad ku dhow oo dabaqii hadda la bilaabay in la saaro qaybtaana waa qayb kale oo ka soo horjeeda qaybtan u dhaxaysana waa meelihii konferensidii hoolalka halkaana waa xafiisyadii halkan waa meeshii kafeteeriyada halkaana waa meeshii masaajidkii iridii laga soo galayayna waa kan jaamacadda oo waa wadada aada luuq aada marka waana dhul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qurux badan qofku waxa la yiraahdaa famaan raa'in kama samica qofku markuu uusan waxa arag wax kale la taa laakiin markii aad aragto oo aad imaatinkaygi meeshaan arkay hami weyn iyo riyo rumowday bay runtii u eg tahay waxaana mahad u sugan tahay balaaran Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadkii hawshan bilaabay haddana ku jira ku hawlan reerahoodii iyo ilmahoodii iyo guryahoodii iyo danihii khaaska inta ka tegay danihii caamka ahaa u banbaxay maalin baan joogaa maan u malayn 4 saac wax ka yar Balad Xaawo sida dadku ii sheegaan ama ka muuqata isbedel weyn bay jaamacaddan magaalada Balad Xaawo u sameysay qof kasta oo ka qayb qaatana waxay anfici doontaa yooma la yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ataa Allah biqalbi saliim maalintaas ay anfici doontaa marka qof kasta waxaan ku boorinayaa naftayda iyo naftiinaba inaad hawshan ka qayb qaadataan ilaahay galadiis meeshan waxa ka muuqda wax qurux badan wax aad u qurux badan baa ka muuqda iyo didiila aad u wanaagsan baa muuqata bilow aad u qurux badan baa muuqda waxa weeye ilaahay waxaan ugu baryaynaa dadkii hawshan iyada ah abaabulay iyo kuwii ka qayb qaatayba ilaahay inuu maaragtay miisaankooda xasanaadka uu ku kabo meeshan waxa weeye bilow baa ka muuqda dhamaystirna weli maaragtay ma gaarin wax badan oo baahi ah muuqata kulli insha Allah dadkii isku dayay oo markii hore bilaabay haddana dadaalkeeda wada iyo dadka islaamka ah oo insha Allah klibkan dhageysan doona arki doona intaba kulli waxaan malaynayaa inay dardar gelin doonto arrintaas iyada ah waxa weeye wax kale oo hadal oo hadda aniga ii dhiman oo maaragtay la dhaafay ma jiro waxaan kaliya u boorinayaa waxa weeye dadka muxsiniinta ah oo aan horay arrintan uga qayb qaadanin in ay ka qayb qaataan oo ay Ilaahay hortiisa wax geystaan waari meysida waxa ka hara weeye qofku wax uu ka tagana cilmi baa ugu wanaagsan cilmi muntafic baa ugu wanaagsan waana goobtii loogu talagalay cilmiga isaga ah marka dadkii hore oo hawshan wadayna inay ku dhiiradaan
iyo niyad iyo duco baan un ma garanaysaa hawada u marinaya insha allah